munaasabadan dabaaldega ah 26 Juun oo ah 58 guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel walba uu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo Soomaalinimadii iyo wadanimadii iyo reereyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd Cabdilaahi Suldaan Timcadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysi nacaybka ama diidan gumaysi oo ay ka soo bilaabatay 1900 ka soo bilaabatay halgankii ugu horreeyay halgamada Afrika uu bilaabay Sayid Maxamed Cabdilaahi Xasan oo ka bilowday gobolada waqooyi oo aan ognahay inay yihiin dad wadaniyiin ah oo mar walba aan ogolaanaynin in la gumaysto ama gumaysi aan ogolayn qorisu dhiibkaas muddo 21 sano kadib markii uu dhintay Allahu naxariistee waxaa qorisu dhiibkaas la wareegay SYL oo iyada naftigeedii ay dhiseen dhalinyaro 13 ah oo ku dhisay mabaadiida xornimo doonka oo wadaniyad leh oo dal jecel leh meesha gumaysigu uu ku shaqeynayay qaybi oo xukun meesha gumaysigu ku shaqeynayay qabiil iyo dhaqaale in kala siiyo Soomaali kala gato iyo kuwa uu xiro iyo kuwa uu dilo xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyo lagu bixiyo dhiig iyo dhaqaale lagu bixiyo weey waxaan aamsanahay dadkii waagaas joogay inay naga fiicnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan sidii ahaan lahaayeen waxaan sheegayaa in loo baahan yahay inay tahay waqtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeelay guushaas waxay ka bilaabatay 1960kii markii waqooyi iyo koonfur ay isku darsoontay guushaas oo ahayd guul ummadda Soomaaliyeed u horseeday Soomaalinimo iyo midnimo wadannimadu ma aha inaad Soomaali tahay kaliya ma aha wadaniyadu waa wax intaas ka weyn waxa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyay ku guuleysteen oo ay ku guuleysteen inay Soomaali mideeyaan oo ay ku guuleysteen dadka Soomaaliyeed inay walaalayaan oo ay gacmaha ay isqabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay patriotism wadaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sano iyo bar ka hor wax wadaniyad ka hadlaayay waa yaraayeen waa laga baqay wadaniyad Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato wadaniyadu waa waxa kaliya oo dalkan uu ka hormarayo oo aan uga adkaanin qabyaalada iyo dareysiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh